هذه معاني مرنا عن المامي. والله الذي لا إله غيره كيني هوية له ما أنت أنكفى إلي سنة ما نبوك الشباب كيني هوية له أما تيني هوية قبطة أنكفى إلي سنة ما نبوك أمهم من هنا. مجتمعات كمسلم كان دحدودا هويدو waa boqorad hooyadu waa malikad iyadoo cajiiso oo habar oo sariirta ku urursatay baa kulli laga wada amar qaadanay. Assalaamu calaykum oraah iyo eray tix iyo tiraam midna laguma leylin karo lagumana soo koobi karo qiimaha iyo qaayaha ay hooyadu ku leedahay nolosha aadamaha iyo ifkoo dhanba lamana inkiri karo lamana ilduufi karo kaalinteeda mugga iyo miisaanka ku qotonta sidaasi oo ay tahay waxa ayaan dara ah haddii aynu ka irdhoono isxasuusinta qiimaha hooyada waxa aynu mowduucan isku xasuusin doonaa qiimaha hooyadeen soo dhawaada oo kuunu macana. micnaha kelmadda hooyo waxa uu ka yimi hooy oo ah hoyga lagaga hadhgalo wax walba oo dhibaato ah waana hoyga laga helo dugsiyo diirsimaad. hooyadu waa lafdhabarta wax allaale wuxuu eebba uumay gaar ahaan aadamaha waxa aanu shaki ku jirin lafdhabartu inay tahay waxa kaliya ee wax walba la'aanteed aanu taagnaan karin ama uusan jiri karin. hooyadu waxaan odhan karnaa waa nimcada ugu weyn uguna ballaaran ee ilaahay ku galladay uumiyaha. hooyadu waa iftiinka u baxa uumiyaha dhammaantiisba iftiinkaas hadduu damana dhammaanba uumiyaha uu dhammaan lahaa sida shamaca la shidaa u dhammaado. waxayna malaysan karin in ay hooyadu tahay qofka ugu samirka badan ugu dulqaadka badan uguna xushmaynta badan marka loo eego ilmaheeda wiil iyo gabadh ku ahaadaba. si kastay ahaataba waxa aanu qof kastaaba inkiri karin inaanu raalli ka ahayn inuu hal bidhiqsi oo keliya inuu dhabarkiisa ku qaado qof kale oo nool. haddaba hooyadu waa ta keliya ee raallida ka ah in ay dhabarka ku ridato ilmaheeda muddo aad u dheerna ay ku sido. sidoo kale hooyadu waa ta kaliya ee u bareeday in ay 9 bilood oo ka horeeya waqtigaasi u diyaara in ay uurkeeda kugu qaado. hooyadu waa ta kaliya ee u galongashay in ilmaheeda u marto dhib iyo xanuunkiisa u kulul uguna rafaadka badan. hooyadu waa ta kaliya maagta raaxada iyo nolosha macaan uguna doorbida xanuunka iyo rafaadka silaca iyo nolol aan raaxo lahayn isla markaana u hibaysan nolosheedii raaxadeedii in uu ku noolaado ilmaheedu. intaas oo dhiba oo aynu soo sheegnay hooyooyinka qaar wax karinta iyo wax korinta waxaaba u sii dheer kasabkii oo ay soo dhiciso. hooyo ayaa la weydiiyay u jecesha carruurtaada waxa ay ku jawaabtay kan xanuunsan ilaa uu ka caafimaadayo ka maqan ilaa uu ka imaanayo iyo kan yar ilaa uu ka weynaanayo. runtii ma jiro qalbi aan ku hooyada ahayn oo duruuf kasta iyo waqti kastaba ku soo jeedaya. xaqa ugu weyn haweeney ama ruux dumar heshaa waa in ay mar uun hooyo noqoto. sidoo kale waxaynu ogsoonahay qiimaha iyo qaayaha hooyada in ilaahay quraankiisa kariimka inagu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. dhanka kale nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhankiisa ka warbixiyay mugayay miisaanka hooyada wuxuuna yidhi jannatu taxta aqdaami ummahaat war jannadu waxay ku hoos jirtaa cagaha hooyooyinkiin. hooyadu waxa ay ka mid tahay nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay adduunka guudkiisa waa albaabka aad adduunka ka soo gashay waana albaabka aad jannada ka gali doonto sababteeda. ugu dambeyntii dhammaan hooyooyinka adduun weynaha gaar ahaan hooyooyinka muslimiinta ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay xaqooda gadaal ka siiyo camalkooda aan macsi lahayn ilaahay midigta uga dhiibo intooda dhibaataysan dhibka ka faydo intooda xanuunsan ilaahay caafimaad sareecan ugu bedelo. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.